بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal iyo dhegeystayaal ba waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay doorka suxufiyiinta iyo waqtiga dagaalka oo ay caawa marti inoogu yihiin suxufiyiin Soomaaliyeed oo kala ah gudoomiyaha ururka isu taga suxufiyiinta Soomaaliyeed Daahir Cabdulle Calasow oo dhinacayga midig fadhiya iyo weliba cabdisalaan yuusuf guuleed oo isagana ah nin saxaafadda iyo cilmiga sociologiga bartay oo ku takhasusay labadaba caawa waxay nagala qayb qaadan doonaan barnaamijkeena aan ku eegi doono doorka suxufiyiinta iyo xilliga dagaalka waxaan leeyahay labada suxufiyiinba kusoo dhawaada tv-ga g b c ee magaalada muqdisho daawadayaal sida aan la wada ogyahayba waxaa jirta in waddanka uu marayo marxalad aada halis u ah iyadoo dagaallo ba-an ay maalmihii ugu dambeeyey ay ka soconayeen gobolkaasi bay oo dagaalkaas oo u dhexeeya midooda maxkamadaha islaamiga ah iyo weliba dhanka kale ciidamada etoobiyaanka ee kusoo gardarooday gudaha waddanka Soomaaliya haddaba barnaamijkeenan caawa waxaan ku falaqeyn doonaa aniga iyo weliba suxufiyiinta ila fadhisa kaalinta kaga bannaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ka qayb qaadashada marka arrimo noocan oo kale ah oo dagaal ay ka jiraan dalka weliba ay ka shaqeeyaan amaba ay u dhasheen iyadoo la ogyahay in farqi weyn uu u dhexeeyo qofka journalista ah marka uu ka shaqeynayo waddan uusan u dhalan iyo marka uu joogo uu ku sugan yahay waddan uu u dhashay oo isaga uu kasoo jeedo labada shaqana waxaad u malaysaa in ay kala duwan yihiin marka la eego qaababka lasoo darsiisa ama waxyaabaha lasoo gudboonaan kara qofkaasi journalistaha ah haddaba caawa aniga iyo saaxiibaday socdaal iyo guuleedba aynada Calasow iyo guuleedba waxaan falaqeyn doonaa doorka amaba kaalinta suxufiyiinta iyo weliba waqtiga dagaalka sida midka iminka uu ku sugan yahay waddanka Soomaaliyeed ugu horeyn waxaan siinayaa saaxiibkay Daahir Cabdulle Calasow oo dhinacayga midig fadhiya isaga in uu barnaamijka furitaankiisa uu qaato waa maasan tahay runtii aadan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijka macana oo looga hadlayo doorka suxufiga maxaa la u baahan tahay in si weyn loo gorfeeyo u baahan tahay iyadoo uu joogo cabdisalaan oo experti ah marka dhinaca loo fiiriyo journalism politicskan ka sheekayn doono aniga haddii aan ku hormaro runtii wariyuhu waa dhexdhexaad haddana dhexdhexaad ma aha maxaa loola jeedaa waa dhexdhexaad haddana dhexdhexaad ma aha wariyuhu waxaa ka mamnuucaftay qof kastoo muslima dee qof kasta aan been sheego marka laakiin maxau haddana sheegayaa wuxuu sheegayaa wixii jiro sheegayaa wixii jira qaabcinka u sheegayaa marka hadda aan tusaalahan kaga soo qaado ood fiiriso dagaalkii Vietnam maraykanka wuxuu ugu jabay media ugu jabay waayo waxay dadku ka fiirsanayeen maraykanka gudihiisa telefishinka iyadoo la baabi'inayo genocide-kii uu socdo marka dadku kaceen kasoo laabtay waa la bushkiday maxaa kadib dhacay xilliyada ka dambeysay waa la ogyahay telefishinada dalka maraykanka waxay tabanayeen qaabka u shaqeynayeen waa la ogyahay marka waxaa fiirsanaa jeer marka baqdaadi meelaha laga hadlayo dagaaladii Ciraaq lagu qaaday Afghanistan wariyaha maraykanka ah ee saaran taangiyada maraykanka qaabka wuxuu soo tabanayay wasay wuxuu soo tabanayay waayo haddii uu yiraahdo waxaan soo tabanayaa marka waxa jabka soo gaarayo kalenta maraykanka dadku disappointed ku noqonayaan ku nijabayaan dagaalku isla markii kacdadu inay la karo marka horta waa saxo waxaan noqon karnaa marka samacadaha loo adeegsado dhiirigelinta samacadaha loo adeegsado kicinta bulshada taa waan noqon karaynaa laakiin kuma qasbanaan karayna marnaba inaan been sheego waa tahay aad buu u mahadsan yahay Daahir Cabdulle Calasow ayuu ahaa kaas iminkana waxaan siinayaa saaxiibkay cabdisalaan yuusuf guuleed bal isagana in ra'yiga ama doorka ugu horeeya ee saxaafadda ama iyo suxufigaba xilliga iminka waddanka uu ku jiro oo kale marka xaaladdu ay noqoto waxyaabaha la gudboon bismillah asalaamu calaykum journalistaha shaqadiisa iyo waqtiga dagaalka journalistuhu waa profession waliba aada u muhiima waqtiga dagaalka marka lagu jiro sida uu saaxiibkay sheegay markii uu qofkan joogo waddankiisa iyo markii uu waddan kale joogo labay kala tahay qofka journalistaha caws ma ahan buurna kama imaanin baddana kama soo caarina waxuu ka yimid dal iyo dada uu leeyahay ehel uu leeyahay qofku waddanku markii uu dagaal galo ninka xabadda sida
iyo ninka saxaafadda ama journaalka qoraya ama kaamarada report garaynaya ama television fadhiya, nin kasta waddanku wuxuu ku leeyahay mas-uuliyad. mas-uuliyaddiyaa marka qaybsan, waxay u qaybsan tahay mas-uuliyaddu. dagaalka wuxuu kala yahay dhowr nooc. mid waa mid xabadeed, ama madfac ha noqdo, ama bom ha noqdo, ama xabad yar ha noqdo, waa mid xabadeed. midna waa mid maskaxda, midna waa mid sawiro ah, muuqaal. oo inta badan midka maskaxda waxaa lagu kaalmeeyaa sawirada. sawirka marka laba kala ah. mid waa mid qofka marka soo bandhigto isla markii qofka dareemi karo, dhihin karo war sawirkaas alla ilahay waxaan ujeedaa nin dhaawaca, nin dhintay, taanga cararaya, oo qofka dhihin karo. iyo mid saadaal maskaxeed oo qofka aad sawirka u cabiraysid oo leedahay sidaanay wax u dhaceen, kasoo qaba nima raadiga kaa dhagaysanaya ma joogo meesha inaad u sawirto sawir maskaxeedkaas. sawirkaas wuxuu ka awood badan yahay ninka xabadda ridaya. dabcan ninka xabadda ridaya waa loo baahan yahay, haddaan xabadda la ridin waa adaa lagu imaanaya, wax ma sheegi kartid. laakiin ninkaas wuxuu hadalka gaarsiinayaa nimaan xabaddii meesheedin joogin, nin duqa, islaan, canug yar, qof kasta wuxuu u sawiraya sida wuxu dhacayaan. wariyuhu ma yahay dhexdhexaad. wariyuhu dhexdhexaad maaha, mana noqon karo dhexdhexaad. dhexdhexaad wuxuusan ka noqon karin marxaladda asaga naftiisa ah iyo cid kale. dhexdhexaad kama noqon karo. waddankaada iyo dal kalena waxay yihiin naftaada iyo cid kale ayay noqonayaan. laanno markii waddankaadii lagu soo xadgudbo, arrintii waddankaada iyo dadkaada iyo dad kale udhexaysa waxay noqonaysaa naftaada iyo cid kale. wuxuu leeyahay role ah marka inuu ciyaaro, inuu matalo naftaydiiyaa lagu soo xadgudbay iyo cid kale. cidda kale waa maxay? waa wixii waddankaada wax u dhibaya. that is his role. soomaaliya hadda maalmahan waxaan maqlaa dowladda kumeel gaarka ah iyo sida la sheegayo labada kooxood dadku waxay ugu baaqayaan in labada dhinac xabadda joojiyaan. there's nothing called laba dhinac. waxaway Soomaali oo dagaalamaysa. weliba waxaan aaminsanahay terminology-ga ah maxkamadaha in laga bedelo la yiraahdo shacabka Soomaali. this is revolution. waa kacdoon. marka la yiraahdo war kacdoonkan dadka Soomaaliyeed ay wadaan, waxaa dagaalamaya dadkii Soomaaliyeed oo hogaaminayaan maxaakiimta islaamku iyo waxaa cadowgii soo jireenka ahaaya Soomaaliya oo xabashida ahay oo helaya kooxa yar yar oo laysan u siinaya dadka Soomaaliyeed in la dilo. that is the terminology lagu dagaalamayo. waa role ninka wariyaha uu leeyahay and shouldn't be dhexdhexaad. nothing called dhexdhexaad. laakiin waxaa jira anshax haddaan kusoo noqdo saaxiibkii Cabdisalaan Guleed. saxaafadda waxay leedahay ethic ay leedahay ama anshax ayay leedahay. haddii aad tahay suxufi si kasta oo loogu soo xadgudbo, haddana haddii aadan taas micnaheedu ma noqon kartaa in wax aan jirin aad sheegto marka? example haddii tuug gurigaada soo galo ama cid tuug u soo galo lagu yiraahdo warka keen, dhexdhexaad ma noqon kartaa? ama noqon kartid. su-aasha anaka jawaab waxay tahay tuugu guriga ma lahan, wuxuu ku soo galay si qalada. wax kasta oo gurigaas ka dhaco tuug waa ku qaldan yahay. from dadkii loo soo dhacayaad ka hadlaya marka waxaa leedahay tuugii waan soo dhacay, alaabo ciddi ka qaatay, islaamow daqray, gurigii albaabka ka jebiyey, markuu sii baxaya cunugana ku istaagay. waxaad sheegaya nin soo xadgudbay oo dhib wax kastoo isagu geeyo waa dhib. wax kastoo cidda loo geeyana loo geystana waa qalad, soo ma? so from ciddii side markaas adiga joogtaa wadada markii lagu soo xadgudbo waxaa cid guuleystay ay sheegaan wararka lagu kalsoon yahay. yani an example aniga hadda qofaan tirin siinaa mala, laakiin yani roolka tusaale ahaan waxaa guuleystay sida la sheegayo, waxaa la dilay intaas sida la sheegayo, waxaa la sheegaya taangiyada ay wataan inay yihiin kuwa duqa oo saddex ka mid a maaragtay ciid maaragtay ay ku socon waayeen. laba taangiyo madfaco la sheegay, waxaa la sheegay kuwa duqa inay u dhici waayeen. diyaaradtooda waxaa la sheegay inay kici weyso, dhaawac qaadi weysay. that is the morality. qofka Soomaaliga wuxuu dareemayaa nimanka naga soo horjeeda waxay wataan inay shiid yihiin, eber yihiin. laakiin haddaad tiraado diyaarado lala yaabay oo kugu dambeeya Maraykanka oo 28 maanta ciidankeena kor maray, ciidan dabaabaad oo 3,000 lagu qiyaaso oo taangiyaal jiidanaya hadday horteena soo maray, ciidankeenana qoray suugahay wataan waa dhici waay. that is the absolute ridiculous. waxaa tiri waa wax lagu maadsado ama lagu qasbo sababta ridiculous. haddii marka waxa aad sheegayso ay jiraan kaba soo qaadba warka aad sheegayso waa dhab, kaba soo qaad waxay haystaan hub casri ah, wataan ciidamada cadowga ah waddanka soo weeraro kale. dhanka Soomaalida waxay haystaan hub aan saas u xoog badnayn. haddii warka saas uu yahay aad dad u sheegayso uu yahayba in aad sheegto oo suuyaha u tiriso maxaa diidi kara? right. waxaa diidayaan ku sheega markaad tiraahdo dadka aan la dagaalamayno waa naga hub badan yihin, waa naga awood badan yihiin. dadka dhegaystahaada muxuu dareemayaa? sawirka dhegaystahaada muxuu yahay? wuxuu yahay in ciidan lagu dhicin, lagu aadino ay kaa horeyso, qatar ay ku jiraan. hooyo kasta cunugeedia meesha jira, kaan jirina ka jiray u duceynaysaa. qof kastana wuxuu is leeyahay askariga dagaalamaya waa derbiga aad ku gambanaysid.
haddii liya dembigaad ku gabanaysiin biyaa lagu shubay taankiana kusoo socda Ah. qof kasta argagaxuu dareemaya Ah. waxyaabaha aad marka runta ka sheegayso tan runtii tii laga sheegaya ma aha Aye. hadduu wato diyaarado oo markii la afuufo dadka afuufay hadduu wato biyaha diisaan loo tuuro ummadda harqinay adiga ninkii sheegaya mati Aye. waxaa sheegaya ninka iska lahay kuwan ayaa sheegaya adigu waxaad sheegaysaa wax kasta oo basiid ku ah ninkaas dhexdhexaad waxaa laga noqdo tanu ma ah arrintii tuuga iyo cidda usoo dhacay wey arrinta marka waxaad ka wadaa haddii waddankaaga lasoo galo journalista waa in noqdaa mid pious ah oo dhankaa u janjeera bias maahane waa inuu noqdaa nin wadan leh waa inuu noqdaa nin wadan leh mas-uuliyadda ninka xabadda ridayaa saaran oo hadala Aye. imageka oo sawirayana waa inay noqotaa image marka waa nin dagaal kula jira waddankii kale oo Exactly. waddankiisa matalaya exactly lanna wariyaha ethiopianka Ah. muxuu dhahaa ma dhaha maxaakiimtu niman awood badan oo lala yaabo oona gambanayn oo askartii gudaha usoo gelaya oo askarta kuwana qaqabtay oo yani hubka aan taangiga madaxa ka gela makulata inu dhaha ninkaad sabado absolutely ma dhahay lanna ciidankiisu la dagaalamay markaas hadduu yidhahda 2 minutes kabacdi waa la xiraa anigu waa xiri lahaa Sax. hadalku wuxuu yahay journalistaha waddankaada gudihiisa markaa tahay yes waxaad leedahay waxaa isqabsaday dhexdhexaad ka noqo arrinta laakiin markii waddankaada lagu soo xadgudbo waxaad wadataa microphone waadna dagaalamaysaa waxaad wadataa kamarad waad dagaalamaysaa wuxuu wataa qoray wuu dagaalamaya laakiin afhayeenka waad ka duwantaa dowladda laakiin waxaad ka dhawaajisay in la xirayo manaha marka ma u muuqataa amuuriyaha ma la dhihi karaa waxyaabaha waddanka uu daacadda ugu noqonaya markaas waxaa kamid ah cabsi uu ka qabo in dowladda amaba maamulka uu wax ka sheegaya cabsi uu ka qabo inuu wixii u qariyo si aan loo xirin ma la dhihi karaa wariyaha hoosta ka maran ee aan shaksiyadda lahayn ama aan dareemayno roolkiisu wuxuu yahay hadda wariyaasha soomaalida inta badan waxaa la yidhaha professional ma ahan ama yani tababar dheeraada ma aysan qaadan xagga khibradda markii looga hadlay waxaa la dhihi karaa wariyaha marka inta badan waxay kusoo celiyaan reer galbeedku wariyaha dhexdhexaad waa inuu noqdo saxaafaddu waa dhexdhexaad saxaafaddu waana been adduunku wax dhexdhexaad uma jiraan qof aan la soo sawiray bm aad u weyn oo xabadihiisii socdaan oo ridaya laba nimo meydahoo garlaho ka sokeeya ciidamo hoostooda ku yaal leeyahay ciidamadii bay dhaba difaacaya wey taangi dhinac ka taagan oo taangiga xabashida kusoo qoray qolyo kaloo artifeefyaha maal dhinacaana safan oo leeyahay ciidamada xabashida yaad asfatays u samaynaya yaad xasiisin u samaynaya ma waytan la dagaalamaynin dad kale la dagaalamay waa ku qalasan saaxiibka guud waa ku siinaya waxaan siinayaa saaxiibkay daahir cabdulle calasow adiga ma aaminsan tahay daahir sida uu uga dhawaajiyay saaxiibka guuleed waa ku qalasan waayo waxaan ku aaminsanin waxaa jira angol kale ama jiro kaloo suxufiga uu door fiican kaga ciyaari karo xagal kale intaa jirto ana ma qabo in shacabka la masliid gareeyo marka la yihahdo ma wataan taangiyo xuna wataanoo bilaash waayo saas wada tiraahdo dee nimanka waa soo socdaan laba gorab oo ku imaanayaan laakiin meeshaan maxay yahay hadda aanba tusaale soo qaato maxkamadda rag baa qanaysan maanta isla joogo meelkanta joogo ay leeyihiin cid kale ma ogolee ayaga unbay ha ninkaan garku saa ahayn waxba ma ogola hoosaa iska xamaraya aan isweydiine ma maxkamadaha una etoobiya la dagaali karaya ciday wadato mise soomaali wey la dagaali karayso jawaabtu waxay tahay soomaali wey la dagaali karayso maxaa la rabaa mataqaana marka wariyuhu doorku ciyaara inay ahaato si soomaalida isu keeni lahay inuu yidhaahdo war jiritaanka soomaaliyeed yaa loo baahan yahay in la badbaadiyo ya tusaale ahaan hadda ciidamada xoogga dalka soomaalida ugu dambaysa taariikh ahaan waxay ahaayeen siyaad barla ridaayay saddex boqol iyo konton kun oo askari ahaayeen konton ha dhintaano boqol dibadaha aadaano boqolna beeshitaan noqdaan maxaa soo haray boqolka askari haddii la sii ka waran wariyuhu sheegay ciidanka xoogga dalka soomaalida dalkiisa aan uu ka hadlo maxaa saas waay ciidamada uu wacyigelin uu sameeyo marka ciidamada haddii boqolka ardada la siinaayo la siiyo boqolka ciidamada qaranka ah maxay samayn karayaan haddii la yihahdo shacabku tani waa dhibaato lagu soo wajahan aysan u kala harin waa awaarnaas kale waa wacyigelin waay shacabka odayaacaya laakiin haddii ayadoo maxkamadu ula dagaalayaan aad tiraahdo nimanku waxay wateen yaa lasoo sawirin mataqaanaa inta yar maxkamada laga dilo ma ah soomaali weyn waxaa la rabaa in laga dhaadhacsiiyo shacabka jooga baydhabo etoobiyaanku muxuu yahay qorshihiisa wasis ajandaha etoobiyaanku waa in lasoo saaraa miiska wariyuhu inuu ka sheekeeyo taas waay laakiin ani ma qabo wariyuhu in wax jiro uu daboolo iyo in dhacdooyinka noocaasa way dhici kartaa in qaarka qaar waxyaaba waaweyn markay dhacaan inuu asturo laakiin in masliidin dad lagu sameeyo oo qofku iska hayka ogaad ama etoobiyaanka maanta afar taangiyo halaasnada watay ee laga burburiyey afartii midna ciidda ka gashay oo la seexda ma qabaani doorka oo saxaafkiisa ma maqaan waxaa maqaanaa inuu wixii jirna uu sheego dad kalena awaarness u sameeyo uu sheego maxaa horta taariikh ahaan lasoo fogaban maxaa u dhexeeya etoobiya iyo mataqaanaa soomaaliya maxaa u dhexeeyay sabanka maxay horta dhibaato ku dhacday maxay hadda muxuu damacsan yahay cabdullaahi waa nin caynkeya ya cali maxamed geedi goorma ku xoreysa maqalkiisa ya ha muxuu ahaa ya xuseen maxamed geedi goorma siyaasa soo galay siyaasadda
goormuu soo galay hadda hadda shacabkiisa u yeertaan taageeryaasha kuma lahaa taageeryaashiisa Ethiopia ay rabaan waa inay ka banaan baxaan waxaa waraysan kartaa 4 taageeryaashiisa dhahay wasiirkeenu waa inuu kusoo laabtaa magaalada caasimada waxa qabsataa hay usoo laaba marka Soomaali waa tan waxaa ogno kale Sheekh Shariif oo kaleeto ninka la yiraahdo Shariif Xasan oo kale waa la codeeyay isagaa saxiixay ciidamadii shaya haddana muqsho yimid taas waa laga hadlaa waa qodob ahaan laga hadlaa marka awareness u baahanta adiga waxa true adiga hadii kalanto nin extremist aan noqonaysa ya qofka ku fiirsanaysa lafteeda hadda ninka maxkamadda u sareeyo Xasan Aweys marka aniga aan caawa asagu sameynaa ide oo fiirsanayo interest badan kuma ah inaan saykiis ogaana laakiin waxaan rabaa inaan dhaho maxkamaduhu maxay horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaga maarmayaan ya maxkamaduhu maxay kaga maarmayaan maxkamaduhu maxay Soomaaliya kaga maarmayaan ya maxaa la isku koobayaa awoodaha baawarka waa in abwaanada la helaa waa in fanaaniinta loo fasaxa inay sameeyaan wacyigelin fanaaniin doori kullada waa in laga hadlaa fanaankii la aasay ya aaway ninkii dhoofku in bay garada dhawaysaa ma ka maqashay magaalada waa in qalabka warbaahinta wax la rakibaa markaas duuniya ka ay waa laga hortagaya Ethiopia kuma joogo karayo hadduu laga dagaalay meesha geedku taagan yahay ma joogo karayo xitaa hal saacadood ma tagaa karayo ya laakiin marka la fahansiiyo nimankan waa niman saasa sigaarkiina cabiyinka sigaarka xusla sigaarka xunka loo socdaa wallahi ya kii kaloo jaadka xunka loo socdaa mid kaloo meel yar oo buula deganay wuxuu ku leeyahay war aniga meesha hadii nimanka qabsadaan halka xunka wala waxayna sababta dadkii waxa umar dadkan 16 sano kadib inuu maamulka dhigo laakiin hadda waxaa la taagan yahay xaalad khatar dalka xaalad xun ah soo wajahday waxaa khatar loogu jiraa jiritaanka Soomaaliya in lunta ya loo yira jiritaanka Soomaaliya ma difaaci karayaan isbahaysi gooni waxaa difaaci kara Soomaali weyn waxaa tusaale ku soo qaada waxaa dhacayso kaleeto inay hambali soo jeediyeen Somaliland markii maxkamaddu ay guuleysteen oo warlordski laga saaray magaalada waxay dhaheen waa hambaleyna islaamka maxkamadda laakiin maxaa dhacday maalin kadib in qor lagu jibiyo laado Somaliland waan tagaynaa wax dhow qabsanaa maxaa ka dhacay marka propaganda fiiri wax ka socda internetka kale marka waxaan qabaa walkay gurida ku diidana waxaan rabaa in wacyigelin si dhaba loo sameeyo de wixii jiro xaqaan ala qarin waxaad ka dhawaajisay macnaha in waxyaabo badan ay jiraan tashuusha horta maxkamadda islaamiga waa bini aadam waa qaldami karaa lama dhihi karo 100% waa sax yihiin laakiin markii uu jiro cadow dibadda oo ka baxsan ayaga ka shisheeya ka xigi jira ma quman tahay in ayaga wixii ka qaldan toosh lagu ifiyo mise waxaa haboon in marka hore waxaas kale la iska xaliyo oo aan isku soo laabato inta kale bulshada Soomaaliyeed waxaa si loo xanaaqto marka hore wax si loo xalaas la iska rabaa idoo Ethiopia soo joogaan intaasoo maxay reebay dhabooda waa joogaan waxay leeyihiin mataqaanaa aniga madaxweynahay aniga ra'iisul wasaarana xitaa ana waxaan dhihi karaa maxkamadaha burburu sameeyay dowladda Abdullaahi Sharif Faliida marka hore ya haddii negotiation qaab kasta bay u wajahdo ya maxkamadaha ka sheekay lahaayeen باور كوس كيرا لا تعدي دولة دولة نافذ هل كي جوتك البيدو إثيوبيا كدي لصو حريريو أو وعيجرين تلا وضل ولا قبض ما أنت تذكر لوتا حضور جوجو كوبا كلاكس ما جوهر لو تجي كوبا كلاوتا ويسوق كوبنا شيء كذا يا عبد الله يو حكومة يا شعب حكومة لكن واحد كنت الجيران وحوها أنا واحد لجوهر تجيبه من جوهر استجابه وحوها إسفلنت أنا مركز طبعا واحد شركة فشلية خرطوم إن وجهي استحد إسقيم هذا وحوها إن ظاهر إن لو إذا محكمتها إنه يسباهين أم يسفدين أي وضع وريها مركز سيدابي مركز وريها جوات صعبة مرحبا حدي وشيرو وحلي ديكو حكومة السناوي حفص جاي يخان أما قلت كاي يخان واسكا جروان وحنا قلنا ورطة مركب ميديا دوك لغا هادلو كانت لبالك كشي توبي ميديا ما بقوله بواح أو فريدم اوف اكسبريشن مالك صح يا ودك لبالك أقول لي محايا أيوة تضبعات 5 مليون وحما عملوا قبيلك وكذا شيء 3 مليون 2 مليون يطبق على حساب عليك او تقرا يا عيد محيو عنوته عيد هذا شو اللي قلني قلت marka wax freedom expression mari saasay tahay maxal rabaa ragga maanta hayo maamulka sare maxkamaduhu inay wariyaha u daayaan oo ay sameeyaan associate markaas wariyaasha oo awareness-ka waxay gelin sameeyaan in la fahansiino idaacadaha media mari wax fahamsiin mari idaacadaha laftooda wax fahamsiin mari waxay soo lahayn fahamsiinta idaacaduhu maanta qabiil hebel ka waran arrintiis ayagu baa Soomaaliya isku noqdinaya warqodobka Soomaalida halaa gudbal isku noqdinaya baasha Soomaali weyn iyo Ethiopia xataa inay jirib kala xid Soomaaliya maska cadda Soomaaliland meel ku xiratay Puntland meel ku xiratay haddana mataqaanaa Mainland wax la meel ku xiratay way kala xirnaysaa Soomaaliya marka Charles Bahasiin inaan Soomaaliya iyo ninka kale Soomaaliya uu soo kan baydhabo joogo inaad u kala heelsan Charles kaasi isku xir oo ku dhawri adiga saas tahay hadii laga dhigay saas maxaa shacabku haysa kadib u sameeyay laftooda soo dhawaasho u sameeyay maanta marka kan ku dhigaysanaya adiga wariyaha dhaw la waa sax kuma kaana wax ma haydan ah
kana waa inuu qaataa taladaas markaa soo dhawaasha amaanayso laakiin waxba haas kuna naqdin soomaalida caawa salaad cali deelaan soo geliyay abu saxaafu matala asaga u lee ka kalena waxaan soo geliyay markaa muuday cabdiraxiin muuday soo geliyay cabdiraxiin haye ka waran arrintaas saas waa laba rabo waxaa leeyahay baashan soomaali waa in la mideeyo soomaali waa in isku hadaf noqotaa qofkii maxkamada ku qabtay meel dhigato hadda qaranka soomaali nationkia loo socdaa ya waa la ogyahay waxa ka jira Addis Ababa waxa ka jira Addis Ababa hadday yimaadaan ka war muqdisho dhibaato ka xun oo dhacda baa jirta ya maraykanka ma taa maxaa anaga nagu tumaysaan waxaa haynaa asaasaas dad wax naga soo galay imaada soo dirsaday imaad hadda waxaa marka taalo miiska waxaa saaran hadda arrinta waa dhacday miiska waxaa saaran sidii kaalinta ay ka ciyaari karaan suxufiyiinta arrinta ku saabsan duulaanka xukuumadda Ethiopia ciidamadooda ay soo dhigeen doorka laga ciyaari karo taasa loo baahan yahay tixjira doorka laga ciyaari karo waa cadiya wuxuu yahay marka doorka media marka la yiraahdo media ma aha kaliya wariyaha soo hadlay yiraahdo saddexna way dhimatay afarna way dhaawactay media waxaa waay bulsho iskaabta way waa in la helaa dadkii hoggaanka wacyigelinta lahaa marka qof haraysa male Ethiopia way taqaanaa Soomaaliya doorkeeda waa la yaqaanaa mediaduna waxaa u muhiima inuu sameeyo barnaamijyo taxanaa oo musalsala ya oo lagu soo fogayo horta maxaa ka dhexeeya Ethiopia waxaa kaloo muhiima inuu soo qabto dadka expertiga ahaa saraakiishii ciidamada in la soo qabto kadib in la sheekeeyo istiraatiijiyad maxay ciyaari karayaan in la sheekeeyo dowladda Maraykanka haddii ay support karayso Ethiopia maxaa iyada lafteeda maxaa ku dhici kara dalalkan hadda iska aamusana geeska Africa saameynteeda lagu yeelan karaa waayo haddii adigoo inta ku haysa fiiri minister intuu wuxuu ku hayaa 75 milyan dhaqtiisa ku hayaa saas uu celinaa haddaba annaga xogaa gacanta nala soo laalo maxaa dhacay kuwa dhaqti ku haya baxsanay inay ku dartaan asaguna qaadan maayo few days qaadan maayo marka awareness-ka noocaas noqon kara idoo aan been lagu larin in la sheego sanaawi qabiilkiisu waa intee u gumaystaa eritrea intee u jirtaa meeshaas ma kasoo geli karaa halkaas kasoo geli kartaa iyadoo been lagu darin ereyga horta markaad hadlaysid oo dalkaad difaacaysid iyo diintaada iyo sharaftaada iyo jiritaankaada waxa aad raadinaysaa ma ahan yani inaad run uga sheegto Etoobiyaanku inay wataan hub casriya cibaado ma aha alla u dhawaashana ma aha aniga iyo ninka Etoobiyaanka ahna waa inaan ku kala duwannahay roolka dagaale annagu aan maanta ku wada jirno wixii hagida maamulka maanta Soomaaliya hadda qaybtan koonfur ka dhacay maxkamadaha hoggaanka yihiin wixii wax ka bedela ama hagaajina ama maartay ay ku qaldan yihiin waxa la leeyahay qof aad muwaadin waxa leedahay war sidaan waad ku qaldantihiin naga dhaafa tan waxa ka horeeya tan naga daaya tan waad ku degdegtayna naga celiya waxa nagu fakanay yani qaladaadkooda waa loo sheegay dadku wadanka ayagu iskama lahan wadanka anaga iskale maamulkii yimaada wuu tagaa laakiin dalku ma tago dadkuna ma tagaan waxa muhiima in dalkan hatta yani dadka maxkamadaha la taageersan yahay maxkamadaha lama taageersan yahay principalka yani mabda'a Soomaalinimada saxana islaamnimada la taageersan yahay haddii maxkamadu ka leexdaan oo la arko iyagoo bikri meesha cajiin ku qasay waxa leeyahay no ma ahayn sana marka waxa la taageersan yahay waa jiritaanka ummadan iyo dalkan iyo diintan iyo ummadan taariikhdeedii raggii Soomaaliya u soo dagaalamay xornimadeedii 46 sano jirnaan u maleeyna qarannimadeena wali way nool yihiin raggii يعني دائرة أنت كقبنا رجع أصلا دجالة محرنة مدي سومالية حبشيد الله صوت دجالة منا ولي وينودي ويفكنا يا ما تعيري ودجالة منا ننكي من سنة إنه تاريخيا أوهاي إنه حبشيد كأدقيا ما أنت مورالي يمنتلي وحبها هنا سبورت جريس أو دين عيسى استكتير ترادو دين عنا مصعنا حدين لقل ضمينا ترادو لو سيدان ما هنا واسيدان كسوق وكله وحكينا إن الاستراتيجي ستا على يعني Ethiopia hadday isku daydo inay u soo gurmato baydhabo maxay ku qaadanay waxay ka mid tahay saadaal maskaxeedka qofka lagu deeqsiinayo inuu asagu dhinaciisu adag yahay every single minute waxaan muujinaa in dhinacaygu adag yahay dhinacayguna saxan yahay okay oo sax ah mise hadduu doono been ah saxda waxaa ah inaan dalkayga difaaco saxda waa taas wax kastoon ku dikrood garaynaana waa sax dalkan inaan difaaco la iga gardaran yahay la iguna soo xadgudbay aan xaq u leeyahay inaan dadkayga let me finish this is very important thing markaan keenanin oo analyst ah oo iraado imise ku qaadanay Etoobiyaanka oo iraado okay Etoobiyaanka waxay ku qaadanaysaa 370 maartay kilomitir u jirta xuduudda jidkaas oo dhan ciidamadu waa ku daadsan yihiin sida la sheegay waxay
ku qaadanaysaa 6 hours ama 5 hours ay ku qaadanaya inay yimaadiin haddii jidkaas marka la galo jidadka ay ku imaanayaan waxaan u malaynayaa inaysan suurtagal ahayn inay soo gaaraan meesha okay war gudaha Ethiopia iyada ka waran Soomaalida iyo Muslimku way ku daadsan yihiin dhulkaasi maxay ay qaban karaan isleedahay Soomaalida Ethiopia dadka waxay u tiri garaysaa third class citizen yani dabaqada afaraad camal ay ula dhaqantaa ee muwaadiniintooda marka way ku kacsan yihiin Oromadu ku kacsan tahay dhulkooda wada buuro buundooyin isku wada xidhan tareenkooda waa wada buundo dhulka laamigooda waa wada buunta haddii kuwaas la qarxiyo dee wadanka dhan waa kala go'aya intaas un baana ku filan qofka dagaalamaya moral iyo hela that's in mean beenaad sheegtay because runtaada waa inaad jirto waa inaad difaacda dalkaada ha laakiin horta wax taagan bal fiir xaaladda qiimee xaaladda in la qiimeeyaa la rabaa xaaladda in la qiimeeyaa la rabaa haddaad tiraahdo wuxuu dagaal maanta dhex maray ciidamada maxkamadaha iyo kuwa mataqaanaa dowladda Ethiopia yo simple maxkamaduhu xagee ka yimaado soo shacabka Soomaaliya ma aaminsanaa maxkamadaha shacabka Soomaaliyeed ma waxaa iska waxay tahay dagaal wuxuu u dhexeeyaa Soomaaliya iyo Ethiopia exactly awareness in la yiraahdo qofkii maxkamadaha u qabtay oo maxkamaduhu aad markaad maxkamad laga hadlayo ma Sheekh Aweys iyo Sheekh Sharifa may Sheekh Aweys Sheekh Sharifa dalka wasaqti karaam dirabaan waxa dhibaato ku socoto waa Soomaali stay on a roll of track markuu qabsada askariga Ethioopiyaanka anuu sigaarka ugu daminaya anuu ugu daminaya sigaarka maxaa la rabaa wixii ka dhaxeeyay wixii qofkii wax u qabtay dadka hadda maamulka hayo madaxda u ah maxkamadaha iyo waxa meelaha dhigto tani waa Soomaali Soomaalnimo loo soo baxo Soomaaliya soo awareness-ka ugu horeeya kaas uu noqon karaya laakiin hadda tiraahdo maxkamaduhu maanta babaas fiican wateen kuwa Ethioopiyaankan waxay yar wateen ayaga nooga filnaa leeyahay mar kuwaas waa iska dhamaynaya markaas uu kugu imaanaya meeshaada marka waxaan rabaa inaad shacabka ku sheegto doorka ay leeyihiin doorka shacabka uu leeyahay waa in awareness la sameeyo exactly waa in la soo saaro dadkii u lahaay istiraatiijiyada soo saaro dadka expertiga oo Soomaalida waxa loo yasiyaa hala wareysto kuwa ciidamada aaw war hadda koor maxaa dhici jiray marka dagaalka gudaha habeenkaas lagu intaas ugu bamgareeyay Ethiopia soo xaalkooda bal looga sheekay askari tigreega hadda aragteen ku dhaawactay ka hor la sirta jiifta wala soo qaada dadkii isku meesha ku soo baabaa halkaas soo fiirso bal looga sheekay marka xabad isku ridin waa nin ceenkii ah marka waxa soo baxayso dadku duubni waxa arkaysa furfurnaan maxkamadu waxa loo baahan yahay soo furnaan hadii furnaan sameeyaan oo media fiican la sameeyo oo laga sheekeeyo war inta ka baxo calaaqaadka aniga ninka Oromada joogo muxuu yahay laga dhaxeeyo sabab waa hadduu muslim laga dhaxeeyo still roolka oo wariyaha uu leeyahay aan joognaa roolka wariyaha uu leeyahay hadda way roolka wariyaha uu leeyahay xitaa roolka wariyaha wuxuu leeyahay inuu isku soo dhaweeyo inuu shacabka Soomaaliya isku soo dhaweeyo oo wacyi geliyo oo u sheego Soomaaliland inaysan Ethiopia dan u ahayn Puntland inaysan Ethiopia dan u ahayn in haddii laga taqoostaan raaxamarna kuwa laga taqoosan doono marka iskaashi cooperation la sameeyo oo la isaga mataqaanaa attack ay wadaan looga hortago laakiin hadda weerarka socda weerarka socda wacyigelinta markii Soomaalida la mideynayo marka hore waa marka macnaha xaaladda ay xaalad degan oo laga gaari karo ay tahay inaa hadda ka hor waxaa la yidhi gacanta iyo waxaa la yidhi salka wax kaga tagnaa fallaan markaas waxaa la yidhi teelgaasiba markaasuu yidhi midda salka iga bixiyasa fariistay hadda xaaladii waddankaaba halis ku jirta oo weerar ku socda hadda markaba waxaan ka hadli karnaa inaan bulshada ku wacyigelino inaan Puntland iyo Somaliland iyo Koonfurland ay walaalo yihiin mise marka hore waxaan targetka saarnaa taas xufiintanahay in waddanka marka hore difaaciisa aan ku baraarujino bulshadii ma waddanka difaaciisa waa lama quraan waa la saaraa xooga laakiin lagu saari karaa waa in iska warqabaa hadduu ninkan wax sheego annaga wax sheego wacyigelin ma waxay kan wuxuu soo yiri maanta meesha la tegay wuxuu soo yiri intaasna waa ka dhimantay anna halkaas tegay waxaan kala soo sheegay maxaa la rabaa marka maamulka hadda leader alena samax maamul lena iyo hoggaanka waxaa la rabaa inuu dadku xil saaraa saxaafadda warafinta dhinaca maxkamadaha kale uu yiraahdo bal shir media la shir oo isu imaada oo bal wax la ogaada markaas meesha aan ka duulaynin la ogaadana waa muhiim laakiin adna wax dheh anna waxaan dhihi guridna waxaan dhaho waxa ku soo dhixmaya meesha ku soo noqon karaa okay haddaan anigu wax iraado asaguna wax iraadaa tiri adiga yaa tahay aniga sayaan ah nin kasta aniga waxaan u hadlayaa markii la yiraahdo Soomaaliya hal isu keeno de Soomaaliya markii la isu keeno anu Soomaaliya markaan ka hadlay waxaan uga hadlaa Soomaaliya as a frame kaasaan ka hadlaa hatta kelinka shanaad wuxuu igu jiraa dadka Soomaalida markaan ka hadlay igu jiraa Soomaaliya okay Soomaalida aniga waxa ii tahay hooyaday dadkay dhashay yani hooyo waa dhulka dadkuna waa dadkii Soomaaliya ku nool waa ubadkii Soomaaliya annaga dhan walaalaanahay okay wariyaha idaacad kale ama journal kale ka socdo wax xaq aniga la igu leeyahay lagu leeyahay ma ahan inuu controversial oo sheego yiraahdo war isburinay oo soo kuriyo wariyuhu waa muhiim waana midaana ku naarinta okay
hadalkiisaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa wax kasta oo dadkayga sabuurti garaynaya afaray wataan haddaan idhaahdee laga jiifto nimanka ay dadka soo dardaraan ka waran ninka dagaalka ciidanka militariga ah waxaa laga rabaa inuu u diyaar gareeyo dadkan inay dagaalamaan inuu dadka ku wacyigeliyo okay roolka kaloo ciyaara muxuu yahay dadka qof kasta inaan waajib uga dhigo inuu furunta tago inay tahay horta ama xaaja qabsiin ha lala diriro ama kuuli cali banjar hala diriro ama yani diyaarada hala diriro laakiin waajib waxaa ah muqadasa in qof kasta oo muwaadina dal ha joogo dibad ha joogo oo banaanka tago duqda waxaan leeyahay okay adiga ma dagaalami soo maaha basaas aad odaga waxaan leeyahay adiga ha isqarxi yani waxaan create garaynaa climate ah yani cimilo ah in la dagaalamaan create garayn that means wadankii dadkii way tegayaan journalista kastana waa waajib yani really waa waajib dagaalka labaad adduunka ninga Richard Bennett oo ingiriiska ah wariye ingiriis ah dagaalka labaad adduunka ka soo hadlay markuu hadlay wuxuu lahay annaga ciidankeena annaga wiilasheeni geesiyaasheeni yani wuuna ku amaanay waxaana loo soo qaatay inuu yahay ninkii qaybta ugu weyn ka qaata dagaalka odagan hadda la yiraahdo John Simpson oo BBC da wariyaha weyn ka ah seniorka waxaa la John Simpson aa qabsaday Kabul la yiraahdo markii Taliban la dagaalamayay laana wuxuu yiraahdaa waan ku dhownahay waan ku soo soconnaa 3 daqiiqan u jirnaa aamina Kabul oo soo yirsama ma wuxuu lahay nimankan waa la laga daran yahay was gardar right qaladay he was on behalf of his troops ciidamadiisu matalayay oo afayeen u ahay soo okay that is the role of citizen waliba wadankiisa lagu duulmayna dan ayagu ay leeyihiin u duulayeen Soomaaliya markaan dhexdhexaadinayo waa role nimankan maamulka haya markaan saxayo waa arrin kale furinta dagaal markaan ka soo hadlayo aniga ninka qoraga wata same duty aan nahay ka soo qabo stadium ciyaareed dhageystayaashu waxay ka rabaan inaad u soo gudbiso ciyaarta say u dhacayso waxaa leedahay waxaad ka sheekeynaysaa maantoo dhan derbis 16 jaran jara ah meeshan ku yaal markaas tag gabar meesha istaagtay oo gabadhii cabaar qososhay markay meeshii tagtay dadkii dhan gacantii u ruuxeen markaas gabadhii fogaato derbiga markay si baxaysay xageed aadaysaa leeyo tigidka way iska dhiibtay it's not important waxa important ah hebel banooniga uu qaatay hebel uu gooyay hebel uu siiyay waa laga dhigay alla waa sigay taas oo raba dhageysto and the war is the same issue okay waxaan usoo laabanayaa guuleed waxaad ka dhawaajisay micnaha in suxufiyiinta BBC-da weliba Simpson oo kale in micnaha uu ku dhawaaqaya annagaa socono annagaa wadana iyo waxaas haddaan dib ugu soo laabano saxaafaddu waa baranay waxaa jira markii 2003 markii la weeraray dhankan iyo Iraq ama dhankan iyo Afghanistan markii la weeraray waxyaabo waxaa jira sharci ah oo la isweydiiyey suxufi ahaan saxaafadda ama hataa professoradii cilmiga saxaafadda dhigayay ama shaba waqti laga dhigayo kale waxyaabo laga waaya jira micnaha oo loo yaqaano imperial journalist wax loo yaqaano soo baxay ama journalistaha macnaha ku malaasan meesha micnaha ciidamadii ku dhex jira sharciga saxaafadda wuxuu dhigayaa sida laanqeyrta cas oo kale ninka wariyaha inuu dhexdhexaad noqdo oo uu dhex geli karo micnaha meesha labada ciidan inta uu talaabi karo xagga uu talaabi karo wixii warbixin uu soo gudbin karo okay taa marka waa laga talaabay Amerikaanka iyo British waxay sameynayeen wuxuu ahaa duulaan gardarro ah wariyaasha ay wateen wuxuu ahaa imperial journalist ay u bixiyeen oo aan ku jirin sharciga saxaafadda horna aan loo soo bandhigin marka waa kaas micnaha waa waxaan qiil laga dhigi karin laakiin waxaad ka dhawaajisay waxaad tiri hadda micnaha aan iraahdo hub balaayay wataan ciidamada Etoobiyaanka diyaarado aday waxaan sayraan lagu baaba'ayo kan waxaad tiri bulshadii waxaan gelinayaa cabsi oo ruuc baan gelinayaa waxaad tiri haddana haddii aan iraahdo waxay wataan 4 taangi oo halaysan oo aan dhacayn haddaan irahdana waxaad ka dhawaajisay guulad oo aad tiri waxaan aan hurdisiinayaa ama aan jiifinayaa bulshada baan u sheegaya marka sidee marka aad isku waafajin kartaa labadaas ma inaad barbagaando u samayso bulshadii oo aad niid ahmi aan jirin u dhisto ma inaad jiifisa isqabadsi marka labadaas okay waxaan ku yiri ninka aniga waxa la iga rabaa markaan sheegayo askartan qof kasta waxaan iriyo muwaadin waxaan waajib uga dhigan oo furinta tago horta aan ku waajibi adigoo journalist ah anigoo journalist ah waxaan soo qaatay xaqa oo qofku ku leeyahay horta wadanka hooyayahay guriga joogtaa ee wiilkeedii dagaalka u dirtay raalima ka tahay in wiilkaadii oo dhinta lagu soo sheego cadowgeena oo meedkiisa soo kormaro hooyo raalli kama soo maahan hooyada waxaan ka dhaadhacsiinayaa inay wiilkeeda u dirto dalkana haddaan wiilkeedu dagaalamin uusan dal ahaanaynin hooyo kasta marka waajibay ku tahay inaan iraahdo okay haddii wiilkaadu uu basaas yahay ood arta caawa soo Ethiopian telefoon kula hadlay gurigaadana joogo please soo sheeg hooyada ay tiraahdo waryaa aduu shalad dalatay waana dhima doontaa
generationkii jiirasha soo socday dhulkan aan weligii ku kor socday hadduu leysana doqon yaho boqolaalaad marka that is the role of citizen haya laba aan kala saarna marka role of citizen waxyaaba oo micnaha ah oo ah awareness shaqada muwaadinka awareness aan kiciso iyo waxaan kala saarnaa iyo coverage aan samaynaysa kala saarnaa marka waxna waa wax awareness oo bulshada aad kicinaysid laakiin marka journalistaha uu meeshii tago furintii uu tago dagaalka uu ka dhacayay qaabkeebuu usoo tabinaya marka waa tahay okay qaabka usoo tabinaan ku sheega journalistaha soomaaliga markuu Ethiopia la diriraa suurtagal ma tahay inuu tago xadka kale never suurtagal ma that means waxaad ku jirtaa ayaga aad ka mid tahay line ka sokata waa in bir journalist yani line ka sokata because dad cross garaydo halisa grisal 90% riskigaadu waa 90 level waa 90 okay in xabad jugal lagu dilo midaan guarantee waxa waa inaad amaankaada u ciriiri ku jiro right markaad wari soo tibina waxaad leedahay dagaal baa dhacay maanta nin u hadlay ciidamada laana awood waxaan siinaa aniga inay iyagu hadlaan afkooda anuu ma ahna qasab wax kasta sheego aan leeyahay nin u hadlay ciidamada wuxuu sheegay haddii uu hadlo mid doqona oo yiraahdo gaaja ever naga dhigtay dadkii dhamaana waa ay dhamaadeen oo markuu yiraahdo that is the absolutely ridiculous ma qadaniiskas waa qalad cadowgayga markii uu intaas ka soo daayo clipkaas ay goostaan ee tabay dhabay istaagaan dhahan askartoodii gaajay u laayeen kuwa hadda ka soo cararan biyaan siinay saddex kamidana oonay u dhinteen laba kalena biyo markii sidaas yiraahdeen ma u sameeyay propaganda ma soo sameeyay propaganda u sameeyay markan iraado askarteena maartay saddex beri gurmad ma helin kuwa meesha jooga aadayna u baqayaan hadaan iraado waxaan axsaan u sameeyay ninka kale soo ma ninka aan journalka aan maanta ku sheegay aan kuleeyahay waan arkay hebel maxamed jeelle ninkan la leeyahay salaad maxamed jeelle miskiinka aan ogeyn waxa uu sheegay wasiirka shaandhiga absolutely anigu dhexdhexaad ka mid arinta ninkan laakiin hadda waxa u muuqataa inaad meelaha aad dhinac tahay absolutely ama dhinacaan aniga ama Soomaali أنا من ستي دل كان أنا أقول الشيء لكن سلام على جلالته سواء موادنا أو سومالي أو ولي جاكو وزير في غير هاي لمسي موادنكو معرومة قلت هلا قفك استقلا مثلا موادنكو قفك ووحو كسميسين يعني لكن موادك قفك ووحو كل شيء اللي يسهل كل سومالي أوكي ما أنا بريتش كرايا مواد النادي سومالي لكن دولة مركز قالوا حيل هذا وحن ولا حيو سامر هذا قال ولا قال لا شيء هذا لكن قفك مركز تو أصلي سومالي erayga muwaadin waa wasiir muwaadinku baarlamaanka doorasho la yaabo dadkii waa la laayay maxaad beenta la kuu sheegay maxkamadii waxbay sameynayaan iyo Soomaalidu way dagaalama nololeeyay Soomaaliland laynahan aragnay iyo meydkood okay yaad wax u gadaysaa marka adiga Soomaali ee journalist ah yaad wax u gadaysaa yaad advance u sameynaysaa why aniga anuga farxina cadowgayga moraalka dadkayga u jabinaa aniga ma enemy with inaan ahay mase waxaan ahay qof muwaadin oo wadanka iskale aniga iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxiin Muudey isku role mani afhayeenkii dawladda waa ama maxkamadaha ka wadaya role uu leeyahay ama mas'uuliyad uu leeyahay mas'uuliyadiisu waxay tahay in uu sharaxo oo faahfaahiyo oo arintaas oo dhamaantood ka hadlo dadka marka through ma ka soo xiganaysaa warkii meelaha propagandada ahaa misaalaha sameynaya mid kale jirin aadan midaan sameynaha jirto okay aan siiyo marka waa ku rafan mogta asaga wuxuu ku mashquulsan yahay wargeyskan waxaan oo qoray سنة لقيت قلت حلو باية مشان أضع أنا محلين أرتب ميديا مثل هذا أضع عسكري إن من قطر هو ميديا في عنا وحوادث سمكنا حقيقة قاعد إذا عدنا في بقعة ماشي قاعد تذكر مش هنجون كليه مش هنجون بقعة وقتها شو وكالة وين كنت تدوكا السيد برايس رويترز اف بي تنروشكا يا انترفاكس مركا مثل ما كل مثل الإسلام ليه متقنع أنت ورث القرآن محوش يعني جوليوس رويترز محوها ولا جوليوس رويترز وعلى الربع انتينا جو سيلو خليك على دور كسيلو خليك انا انا وحنا كل شيء انتينا جوجنا حمر هذا هالكمل وجوجنا قبو هبل انا waxaan ahay GBC waxaan jecel digaraha idaacada hebel ama TV hebel waxaan jecel digaraha waxaan raada xog dheeri ah xogta dheeri waxaan maleeyaa inuu nin wal ka soo diray tasawiro oo ku helay dhibco badan absolutely marka horta si arinta loo xalin karayaa wax kasta wuxuu xirantahay hadaan la iska warqabin hadaan hal meel laga duulin wakaaladaas ugu weyn adduunka arkaysaa meel ka duulaan لو أقريا جرا أنت ما لازم تجي كشورستين ويسلوك جيل وبكم ممنوع عين فاقين تصوم رجال سن معاص ماشي كدولة عاقر كم ومرة يعني قناة حلبة إذا عدهان يورجيسين حمر كسب بحيو جعل نجيب أمرا إلى تهاي وحاول استعاوها بالهبل وحول بحاجة من القاعدة حمر أمرا يبنيسك يوركو جرين أرتا سيرت عرض صلاح لك أنا وحقبة وحواه نايسة إننا نسميه كريم
iyadoo aanan hal muuqif ay soo qaadan hal base aan laga duulin hal base aan laga duulin islaanta waxay dhegeysanaysaa kanay qabsanaysaa iyo War saan sheeg. idaacadda warkaas oo kale inta isaan dadku ku waasheen idaacadda saari tiri lama waxay sheegaan idaacadda inba wax rabo sheega warkooda lama rumaysan kara laga dhaafaa le mediaga wuxuu taagan yahay waxa lama rumaysan kara laga dhaafa see loo gudbi karaa waa in hal dariiq la maraa haddaad inta marto anaan inta maro kan xagga maro anaa haddaa tala lix la dila an lix toban la dila iraada anaa aan subaxda murgas waad caamadu xirantoo la dila aan soo sawiro dadku way kugu waalayaane wax kaa fahmaayo horta absolutely marka ninka muhiimku waxay tahay doorka ay leeyihiin madaxda warfaafinta qaabilsan in banaanka lasoo dhigo oo warfaafintan lasu keeno weli Absolutely. medio maagtasan yahay xarun U GBC raacsan maagtasan yahay waa in la yimaadaa GBC ay tiraahdo maanta shirka nooga qaab galay oo minutes soo sameeyo maxaa looga hadla shirkaas saasaa looga hadla see arrintan nimanka loo dagaali karaa sidee la isaga celi karaa sidee shacabka lagu wacyigeli karaa dariiqaasaa lagu wacyigeli karaa oo lasla qabo oo lasla ogyahay ya laakiin ninaa tego wuxuu dhahay aniga gabayayaan ahay gabay waxaan wadaa ku saabsan saas oo aan rabo inaan shacabka wacyigeliyo extreme waa ninkaan laga wada yaa dhexdhexaankan marka marka waxaa la rabaa horta in laisku xiro wixii mediahii see laisku xiri karaa marka doodayna aan bedelin mediahan see laisku xiri karaa xaan ka jiro media wax la isku xiri karaa aniga sida aan qabo inuu qofku og yahay shaqadiisu meeshay ka bilaabato iyo meeshay ku dhamaato haddaan ogahay shaqadeedu meeshay ka bilaabatay meeshay ku dhamaato absolute inta udhexaysana waan fahmi karaa soo maaha sidaad sheegtay haddaan u arko dhegaystayaashayda inay ixiiseynayaan haddaan keeno hadal ka duwan hadalka kale fine waa idaacaddu macnaheedu waxay tahay inaad keento waxaan caadi leeri karaa jaanis lagu kursiyo marka jaaniska maanta ay journalistaha kulmi karaa wuxuu yahay hal shaqa naga wada dhexaysa laakiin asweydiin waxa loo kulmaa maxay marka hore waxaa loo kulmayaa sida horta loo wajihi lahaa arrimaha taagan sida loo wajihi lahaa annagoo noola arag dad hadeertaan shacabkiina marihaabinayo oo been iyo barbagana aan u shirin in la arko maxaa horta wara maxaase war ahayn maxaa wara maxaase war ahayn maxaa faalla ah fikir ah maxaase faalla ahayn inta kiskana in la ilaaliyo waa muhiim roolka aan qaba wuxuu yahay maanta haddii maxkamaduhu ama maamulka meeshan jooga oo ku xadgudba shacabka waa la sheega haleeyahay hebel ninka la yidhaha qalad oo ka galay dadka absolutely waana miskaadgareeyey dadkiina wuu qalday hebel ninka la yidhaha wuxuu ku xadgudba sidaas maanta oo kale dadku waxay inta badan isweydiinayaan war maxkamadeenniyo baabuur runeed ay wada wataane yacni rag badan aroosay ragna furuntii ku baaba'san yihiin sidee saan ku dhacday waa issue jira marka ma la dhihi karaa mase ku badbaadaysa haddii qofka wariyaha uu yidhaahdo maxkamadihii markay qabsadeen magaalada muqdisho oo kale ama gobollada oo kale waxyaabihii ugu horreeyay ee targetka ay saareen waxay noqotay in gawaari raaxa ay iibsadaan wax wada runner meesha maraya nin cimaamad cas ama guduudan wata micnaha meesha runnerkiisata arooskii way guursadeen ninkaasa hebel ah oo ka tirsan maxkamadaha intaasoo kun oo dollar gabar ka bixiyey oo ku guursaday haddii la yidhaahdo ma tahay saxafigii mid uu ku badbaadaya marka qofka markaad sheegaysid adigu waa inaad evidence haysataa yani hadda jawi iska jira waay dadku ay dhahaan lakin waxa laga nimankaan inay baabuurta awal gadan karin oo hadda ay heleen xorriyad marka ay gateen okay let me finish this inay gateena laga yaabo haddaad marka tiraado war nimanka hadday baabuurta wada gateen oo lacagtii dadkay ka gateen haddaad tiraado waxa laga yaaba inaad run sheegaynin so waxaad samaynaysa research baaritaana ku samaynaysaa nimankan lacagta horta ay soo gateen nimanka baabuurta wato ma maxkamadaha u gaday ma iyagaa hore u watay ma lacagta ma hore u haysteen secondly markaan ogaado evidencega runta ahayd nimankaanu inay lacagta ay baabuurta ku gateen aysan ahayn lacagtii hore u lahayd waqtiga ay joogeen iyo lacagta ay ku isbaangareeyeen socodkooda iyo isqarashgarayntoodana aysan isu qalmin waxaan leeyahay nimankaanu dadkii way dhaceen haddii la diido xorriyadda la iga qaado that's meesha imaanaa xorriyadda ninka journalista ah journalistuhu ah inuu sheegaa qaladkii shacabka laga gala inuu shacabku afhayeen u yahay asaga dowladda afhayeen maaha dowladdu marka ayadaa laga rabaa inay tiraado okay isdifaacdo ay tiraado okay hebel ninka la yiraahdo arrintaas oo sheegay evidencegeedu waa tana caddaynteedu waa tan caddaynteedu waa caddaynteedu waa taasa haddii laakiin ay tiraado no maxaa cali baawur ka wata looga hadlay markaas dadka dhan waxay doonayaan in loo yar u noqdaan madaxweyne Clinton markii fadeexadii Monica Lewinsky asoo madaxweynaha dalka oo baawura say loo dilaacay oo propaganda lagu taxama maxaa yeelay hadda anigu wariyaana ma qabo dadka cabsiga laakiin su'aal ku weydiiyay calisow ma labada ma isleeyihiin marka xaaladda ka jirta America oo kale oo saxaafadda in madaxweynaha heer wax laga sheegi karo ay jirto iyo xaaladda Africa gaar ahaan waliba Soomaaliya taala ma tahay ku waxay sababtu waxay tahay ka fiican tahay aniga haddii maanta ninka daray ugu maago
adeerkay iyo aabahay ordaa meelaha ka dhow oo la shaqaanaa waryaa ma anaa waryaa wiilkayga saas yeelaysaa Ay. ya taas laga dambe loo raacdo male waa intaas marayk intaasoo qalqi waay laakiin waxaan ka hadlaa hadda ani weriyaan ah waxbaan sheegay wax turugaan sheegay waa la ixire waxaan ku helaaba bablushataa badan aan ku helaaba magacaan lahayn aan ku helaa hayado waxaa laga yaaba fan fiican lagu siiyo weriye khatara laga sii dhigo waa la idilo ree akhrada taas dhib male waa la idilo ree akhrada laakiin intaad magac raadinayso maya ma laga yaabaa inaad ku baxdo adiga lagu dilo ma hadii la dilo dawaa weriyaha u samaysa riskiga laakiin adiga weliga qof ashuu ku adin ha u noqon haddaarta inuu shacabka aad betashaa awoodda faraa dalkan waa tahay saxaafadda haddaad soo akhrisatay 6400 si wanaagsan حتى أود أفراد ذلك مركا واحد عبسية يبقى كاجلين بقى لكن لكن واحد نزلت السماء لكن أود أفراد أود على السو أود أفراد وحنا عنكر كلينا مركز ده أود يجوه رئيس أيهن كوا transparency هذه لكن أيجا إنسان transparency accountability إنسان أقولين واحد كجيل أفريقيا وانا قناعي صحفيين إنسان كهل ذكرين الحراء مر لو حراء حبس لو حكومي إن صحافة الدنيا يكون بمولين كلها من هبل لو كلا ولا حراء وريه هبل حق حرام أنا سمع وارجنا لكن سوى جيسة كده بس أقول محل نقطة هذا أنت كيف فكريس إنه وري نقطة ما هين وري هو ريسكي one point ما سامعين كرا وريه وحلو بهاي هلاك وريه إنه ورك قيمة وركان مصامين كريا دين محور دمية نقن كمحور دمية محور شعب كسوق كريا وين أسوي تسا هذا الشعب كسوق كريا قد أرد الشعب إلا قيانة والشيء يسأل عن دماغ الموجودس أنت قولي كرت المرة صارت واحد واحد كلير وين لكن دوكيومنتري سمي مرور هذه لكن سيدا كان صراوي وكان نكى قراءة نيجيريان كان عنك والدي لو لقيت تقول السماء إنجليش كحول هذا the longest one the last 9 days سجال بالمثل لو شيء قال لي إن على سورين وريو وصحفي وحلو دلي أمسان أما الله حري إن كان وها كدي معنا وحليا بينا نتا سمتها مرة قرأ على الكومبوزيشن عندي هنا رجع طبعا كاري إذا جاء أجلهم لا يستطيعون ساعة ولا يستأخرون طبعا وقت كذا غير قفك عندكم ما يسوي ولا يسوق هاي حاسين لكن ولا تلقي يديك من التهلكة لو كنت erga labada eray ka duulay waxay tahay saxaafadda xorta ah iyo maaragtay erga saxaafadda xorta ah oo inta badan lagu soo celceliyo oo saxaafaddu waa xor iyo dhexdhexaadka horta saxaafadda xorriyadeeda ma leedahay limit xad ma leedahay saxaafadda xorriyadeeda limit aan caadi ahayn ay leedahay adduunka sharciyaa qoran waddan aysan miidiyada u qoreen regulation iyo qodob iyo charter oosan ma jiro yani media guideline ku socota jid loo sameeyay ayay ku dhex socota ee media yani waxay rabta iska sameeyna ma jirto ingiriiska waxaan aaminsanaa wadamada markii la yiraahdo institutions ahaan wadamada ugu muhiimsan oo ugu taariikhda dheer oo ku jira waxaan xasuustaa hadda intii laborka oo haysta talada xukunka hadda qolada hadda haysata xisbiga shaqaalaha 12,000 oo copy ala print gareey journal ee Daily Mirror 12,000 habeen la print gareey yani markii intaas la print gareey dawladdu waa soo waxay dhaheen joojiye berrina ma qaybi kartiin journalkaas sheekada ku qoray waxay sheekan dadka loo rabay 12,000 waa la joojiyay oo la saaray already yani daabacadii ka soo baxay oo yani banaanka in la qaybiyo diyaar u ah intii kale soo socotana waa la joojiyay waa laga saaray article-ka waa laga saaray qoraalka ma aysan qaylin laana waxay og yihiin qodobka u dhiganay ku xadgudbeen markii hore ma laga yaabaa in loo sameeyo magdhow la siiyay secondly okay magdhow waa arrin kale laakiin haddaan magdhow lagu sameyn adaa bridge karaysa markasta adaa qaldanaa haddii magdhow lagu sameeyo lagu yiraahdo financial waa lagu support garayna markaas axsaan ayad u sameynayso ayada axsaan u sameeyso oo ku yiraahdo waxaan xaqad u leedahay niyo laakiin waa absolutely dadkana wax u tirin mayso maamulkiigana way ridaysaa dadkuna waxna ka faa'iidi maayaan tan marka jooji anaana magdhow ku siinaa waa is afgarad laakiin wixii markaad bridge karayso waa taas okay saxaafadda xorta ahu meeshaas waa saxaafaddu xorta ay tahay santuuqay ku tahay ee ku dhex ororata maahane wax iska madax bannaan oo dhinacay rabaan u yaacaan ma jiraan taadli waxaa dhacday ingiriiska lagama soo saaro sawir askari ingiriis oo dhintay yani inaad aragto suurtagal ma laakiin saxaafaddu waa arnaa afar ingiriis lagu dilay maanta magaalada basra 6dana la dhaawacay wax iska caadi ah oo la sheegay soo ma inaad sheegto waa caadi لأنه واحد وش يجي سوا بقصة ودي أسكري قوي أنتوا عدي وكذا أنتوا لو شيء عديسي لكن أنا ترى ميج كيسي أتصور يعني سيدا وسو شيء لها إنك أنا ميجا يا أديك ويكل الدوين هذه صحفية هذا وحلو قدر مش ده القصة إذا هات أمانة كان تينونا
waxaad aragtay ciidamo Soomaaliyeed oo la dila aragtay oo dhintay meelaha marka ma qarinaysaa oo ma waxaad leedahay laba dhimatay markii 20 dhimatay laba Soomaaliya ku dhimatay ma leedahay wixii la ogaan karo oo la iska imaan karo bari soo marka ma imaanayso in saxaafadii la aamini waayo oo la yiraahdo raggan waa wax propaganda iyo been ku shaqeeya oo shalay inta 20 laga dilay laba sheegeen oo qura inta kalena ay qariyeen see lagu aaminaa bari marka mustaqbalka fiiri dadku waxay rabaan aaminaadu waxay ka bilaabataa dadku waxay ku qancaan dadkuna waxay ku qancaan inay ogaadaan wixii naftooda dan ugu jirto iyo wixii khatar ugu jirto laakiin qofka haddii markaan soo sheego 25 askari oo meyda aan yani sawirkoodii kaan haddii la dilay 25 haddii la dilay maamulka waxaan leeyahay 25 askariya meydkooda meeshaan yaala ya inaan publish gareeyo maxay dadkayga u geynaya horta kow maxaa ka imaan karo haddaan aan qariyo maxaa ka imaan karo war haddaan sheego 25 tan la dilay waxaa laga yaabaa nimankan inay waraysi ay siiyeen idaacad kale ay 3 ku sheegeen oo saddexaana la ka dilay inta kale waa cidoodu waa u sheegeen ay leeyihiin wiilkiin waa dhintay laakiin public waxay dhaal 3 bis la dilay haddaan marka aniga soo qaado sawirkooda soo yaan la dagaalan yaan publicity u sameeyay cadowgaan u sameeyay absolutely anything oo wadankayga sharaftiisa aan ku ilaalina dhaqaalihiisa aan ku ilaalina interest dhaqaalaa jiro waxaa jira interest diineedaa jirto interest dhaqanaa jiro interest diin xuduudaa jirto intaba waxaan ka sheegaa waxa ugu muhiimsan ee dadkayga dan ugu jirto hadday dan ugu jirto marka soo lama dhigi karo journalism loyalty-ga ama daacadnimada journalistiga waxay ku xiran tahay duruufaha jira journalistuhu wuxuu ku xiran yahay interestiga dadkiisa duruufaha markas ka jira iyo duruufaha hadday qabato marka in dalkiisa lasoo weeraro waa another issue arrin kale waay markii uu meel kale laba wadan oo waxba ka dhexin uu ka warramayana waa inuu ahaadaa mid dhexdhexaadka waxay ku xiran siyaasadda waddankaada ku leeyahay waddankaas dhexdhexaad kama noqon karti okay cali suhaye horta aan ku salaaban mawduuca haddaad maanta o dhan lalahay kuwa la dhashay walaalahayga qaraysan wax weyn ma ah laakiin waxaa wax weyn ah horta waxaa dhan maxaa u sababa waxaa dhan la isweydiin waay waxaa dhan amaan ka taagan konflikta ka taagan ana waxaan aaminsanahay in media ba sabab yihiin waayo haween kasta waa aragtaa waxaa la sameeyay barnaamijyo fara ku dirra oo xikmad badan aan xambaarsanayn ya oo aad u moodo in lagu siiyo shakhsiyaad gaar mudnaanta ya أنا أقول يوم مقال برنامج هذا دعويك وحياة ما لا شيء واحد عليك زغالك بركي في ما مقال ولي أقويها لو ورا سنة أو دفلوم تيجي تدرك لو هرمرك لو ورا سنة شيخ لو ورا سنة مقال حلوين ولي أنا مقال أنت لو قلت أنت اللي سكت لي ولا مقال واحد برا شيء يا بالأساس واي من أو حوين وحلا دور بس قيلة وصبح اسكجيف مركو صاق احتراف لو جوي بقى أو ببلشت لو سميه زين ببلشت لو سميه هبل وسير هبل كاسو هبل ninka la door waxaa sadis kala joogo waxba aan ka ogeyn baarimaan waxa aan horta waxaan u arkaa saxaafaddu aan iska warqabin saxaafaddu aan mabda lahayn saxaafaddu hadda wax u sheegala saxaafaddu aan soo barnay ethics-ka iyo matqana wax saxaafadda aan soo barno professional aan wada ahayn oo maqlay hawal haddii hadalka day wax arkaysaa nin wariyaha nin kale oo mas'uula si baas wax oo maanta wax hadal ku celinaya war fiiri hadda BBC do kaleeto صدق دقيقة ده يقول بطهاشة سبرك يقول دميس صدق ها برنامج كده فيني صدق أصل أركي يسوي واحد الصوت تيم تقول له سميه أنا كنت صدقت إنجليزي خبرت أنت يبغى خبرت ما بعد ولي أما قش واحد homeless people أو نيويورك ده كان ده homeless people كيري كل وقت مرة مغلق يا ده كله يا كجستو مش يا جان مركا صعب دورت وحفه أنت مركاري لما كان أستطاع وبدا يا ميديا سمست مرت وحفه معنا اللي لا مركاري دوركي وسارد إعلام كمان فهمت محكمتنا هم مقطع ولي مركز حديث كلا أسوسيت مدرسة أو تذكر أوان نسميه تذكر عيد بنتنا بين الله شكله ما يسكر أنت تذكر حلو سهل حلو قليل سهل يا كريدي مغشو وحيا للسوق أنت تعال وحيا لقطبوين كمان هتعال طيب سوي واحد جديد أنت أسكر ولا كليه بس أنت أسكر يكفي طبعا أكو فيلم بها ها بحيث ديار سنة ضمنها هلا فصح فنانيت هلا أول كيلو أبوانيت وجواني هلا أول كيلو هلا فصح الله فصح فنانيت اللي هسه هلا فصح أنكس أنكس على سؤال أنكس لابنا صحافة وحجر برنامج كبح عالم هذا إذا على قوة وين سيدا BBC ده أكله VOA ده أكله وحضرتك صبحي وهراء حلقة هذا برنامج اللي يقارن BBC ده أكله نتورك أفريقيا أكله VOA ده أكله Day Break أفريقيا أي أسمه استيل جالس أركز لو ما شيء واحد أما النبض أما غير محصو هذا ورس هو محصو قبله warkaagan ha ahaado nin hebel iyo meeshiisa hogaamiyaashiisa waxay meesha dagaalka meesha ka dhaca meesha oo haddana markaa warka samayso gadaal ka xumeeyo
sida uu sheegtay iyo sida ay tahay gadaal usii lifaan marka saas waa usoo laabanayna balse daawadayaal iminka aan ku yarnasano qadar yar oo adeega bulshada waxaan siinayaa saaxiibkay guuleed oo isagoo macnaha hadalka qaatay markaas oo ka hadlayay qaabka koobiyeynta waxyaabaha caalamka ama saxaafadda caalamka ay kula dirirayaan wadamada Africa oo ay usoo qaataan barnaamij ahaan taas oo ay ku burburiyaan isla shacabkii ay u adeegi lahaayeen haye guuleed horta kow waxaan dhihi lahaa hal erey hadda ugu dambeeya soo dhahdeen qofaa waxaa laga yaabaa in loo dira hadal uu soo waayo ma jiro journaliste war soo wey kara jira ma jiro haddii taaska lagu soo leeyahay cali soo warayso waa soo wey kartaa laakiin inaad barnaamij soo weydo suurtagal ma aha waxaa laga yaabaa reer carbeeda oo laamiga nus saaca taagnada bas iska fiirinaysay ee markii dambe xoog ku goysay waa barnaamij khatar so laakiin waa haddii qofka meelaha aad u shaqayso meelaha uu ka aqbalayo hadal soo weyn kartid ayuu tahay okay taas waa soo dhaaf waxaan rabaa inaan media waxa la yiraahdo media imperialism ama gumaysiga saxaafadda oo directionka maanta u socdo haddaad fiiriso powerka ugu weyn adduunka la isticmaalo inaan ka hadlo mediada reer galbeedka ay isticmaalaan waagii hore reer galbeedka waad ogtahay dunidaas dadka caddaanka ah waxay u yimideen dunida saddexaad way gumaysteen qofka caddaanka ah wuxuu markasta ka sarreeyaa qofka madow waa la adoonsado xoolo camal loo lahaan jiray adduunka marka waxbaa isbedelo waxa la war dadka lama yeelan kare 1800 waa tii la xoreeyay dadkii iyo 80kii inay hadan malayna markii dadkii la xoreeyay ilmihii iskoolkii isla aadeen yani moo la socdo waqtigii la socdo dadku way isku darsamayaan jiilal waxaa soo baxay aan kala saarnay laakiin ilaa hadda caalamka meelaha gaar ah ka jira yani inta badan wali wadamada ugu waaweyn sida Ameerikaanka oo kale waa lagu caaya waa lagu caaya laakiin wax public ma aha okay ilmihii markii cunuga uu aamin inuu ninkan madowga waxba ahayn oo gabadhii madow guursanayso ninkii madow guursanaysa waxaa la yidhi waa in la helaa means kale ama waddo kale oo dadkaan inay dadka ka hooseeyaan lagu tuso okay maxaa la sameeyey waxaa la sameeyey in la yidhaahdo markaan sawir positive ama laga soo qaadi karo dunida saddexaad negative inuu mar kasta ahaado burbur dagaal colaad cudurro africa laga hadlaa africa qofka Europeanka markaa tirada africa kow maxaa kugu soo dhaca runka sheegaad leedahay africa markaan africa kura maxaa kugu soo dhaca cunug calool weyn diif badan islaan oo maqaar duq meel fadhiso oo wejigeed tusoo carara yani oo insaan u ekayn iyo mid alaab madaxa kuwa tooqaxaay out the beauty of Africa xagee aadi safarigay mar tustusaan that means waxay ku soo celcelinayaan waxaa la rabaa in maskaxda cunugan jiilashaan soo koraya lagu joogteeyo hooseynta dad qofka madow yaan la adeegsanaya saxaafadda la adeegsanaya laanno militariga xoogaa waa la dhameeyey kastoo hadda annagana la ku wado waxaa la yidhahdaa marka joogteynta gumaysigii oo loo isticmaalaya saxaafadda idaacadaha reer galbeedka kuwooda internationalka iyo kuwa localka way kala duwan yihiin isku color ma ahan TV-gooda xayisiinta isku xayisiin ma gasho backgroundka hataa oo gadaashooda isku midab ma aha waxaa loo gadaa qofka dunida saddexaad jooga waxaa loo iibgeeyaa sawirada Hollywoodka oo kale yani waa imperialism waa maskax lagu doorinayo dadka inay aaminaan waxaan caalamka ka jirin qofka Soomaaliga ah wadankan joogda tirado Mareykanka New York hadaa tirado picture kusoo dhacaya janna adduun janna adduun aksar weligiisna ma tegin maxaa ka arkay Hollywoodka waa loo xayisiiyay waxay soo safriyaan marka sawirkooda ugu quruxda badan weligood ninkooda madax alaab ku wato meel jiifo tuugsana ma keen haddaad aragteen streetkay New York iyo London subwayda way tuugsadaan waxay soo dhoofiyaan marka sawirka the best the worst inoo qariyaan maxay inta ka qaadaan the worst ay ka qaadaan Kenya hadda magaalo dhisan waay markii East Africa laga hadla xaafad la yiraahdo Kariako ay keenan everyday oo islaamu dhanka gacan ku dhaqanaya iyo saabuun islaam madaxa ku dhaqaysa iyo meel jid qashin socday ay ag fadhiya taanka iyo quruxdan waxay joogteynayaan xumaanta dadka maxaa la isticmaalaa idaacaddii aawo dhexdhexaadkii aawo cadaaladii okay ma jirto thirdly waxaan usoo noqonaa markaan waxaa la yidhaahdo maxaa ka dhexeeya maxaase lagu midayn karaa wariyaasha saxaafadda iyo suxufiyiinta waxaan isla leenahay waa maxarta haddaan meel ka wada shaqeyno aniga adigu maxaan isla leenahay waxaa naga dhexeeya shaqada aan wada shaqeynayno soo ma waxaa naga dhexeeya shaqada albaabkan la furo inaanaan wada gelin saacadaas inaan ka rawaxno inta saacadaas aan shaqeynayo inaan shaqeeyo shaqadeenu inay jirto laanno haddaan kambanigaasu jirin mushaar ma qaadanayno waxaan ilaalinaynaa policyga iyo sharciga iyo jiritaanka kambaniga soo ma xisbiyada siyaasadda ingiriiska oo kale markaad soo qaadato ama Mareykanka waxay ka midaysan yihiin dalkooda inay difaacaan
haddii qolo ay samayso siyaasad kasoo horjeeda bush oo kale oo ku xadgudbay wax maraykan isku raacsanaa maahan haddana waxay dhaheen waxaan taageeraynaa wiilasha iyo gabdhaha qalabka sida ee militariga ah ee ka dagaalamaya furmaha yani kuwaasaa moraalkooda inaan dhisnay nagu tahay annagoo kasoo horjeedin siyaasadooda way isku raaceen soo ma that means maxaa ka dhexeeya waddankaa ka dhexeeya laakiin siyaasadda way u kala duwan yihiin journalistaha waxaa ka dhexeeya dalka iyo dadkaa ka dhexeeya haddaan marka isla ogaano inaan waxaa naga dhexeeya waa maxay guriga hooyadeen inay noo ducayso haddii aan isla fahamno hooyadeen waa ka wada ducaysanaynaa adiga biyo keen ana badaran keena aniga maraan u keena albaabkaan ka ilaalinaa that means waxbaa ilaalinayna laakiin daysan jirin wax naga dhexeeya aniga adiga qof bacadku rabo goosana waxaysan fahamsin marka journalistiyaalkii waxa ka dhexeeyey roolkii citizenkay iloobeen mas-uuliyaddii wadaninimo ayay ku kala leexdeen marka inuu yidhahdo waddanaan leeyahay adna waddanaan leedahay haddii uu ku xadgudbane waa in shacabku ciqaabaan oo aniga la igu barto inaan ahay ninka dalka u taagan kaasna berri shacabka ay ku qabsadaan aniga waxaan usoo laabanaa qodob ku saabsan doorka saxaafadda iyo sida loo midayn karo horta marka hore wariyaashii muqdishoan kamid ahaa idaacadda isna shaqeynay xamar waxaan ka tegay 2015 October waa markii shirkii Eldoret oo ka furmay waxaan isku yeestay inaan kamid ahaa wariyaasha ugu khatarsan magaalada sankan kor u taagay ya newska soo kula jiray ilaa waxyaabo qajaraaraf oo hadda markaa dib u fiiriyo asla yaabo ka tiirayo waad kula qurxanaa laakiin yaa ila qurxanaa waxaan dhahay war maada dhigaysta ninka aan u naqdiyay maanta asmaacata markaa wareysanay sida u naqdiyay isan hebel aan madax isugu geli markays waxyaabo noocaas aan ahayna laakiin maxaa marka dambe oo shirka jooga aan baxay oo inta badan soo maray diro saddexaadna waa maray laga bilaabo Senegal waxaan soo maray dalka saxaraha ka hooseeya afka Faransiisku hadla oo dhan aan maray waxaan ka mid noqday xiligaas koox leedahay reporters Faransiis ka leedahay Suusan Faransiis la socno agaas waa kaarka gadan kala siiyay kaarkaas saxaafadda la siiyay ha press marka maxaa jiro maxaa soo arkay xitaa markaan Yurub tagay maxaan ku arkay journalism shaqo ku shaqeeyaan waxaan ma aha meel Muqdisho waa meel alla yaabto waa caasimadda dalka Soomaaliya haddana wariyaashii ma aha saaxiib ma aha kuwa isku fikra ma aha kuwa wax soo siyaadiyo ma aha kuwa kala faa'iideysto ninkii wariye ahaa waxaa laga yaabaa inuu nin degmada madax ka ah ama ganacsada oo saas ugu tiiriyo oo uu habeenkii la soo sheekaysto wuxuu rabaa inuu subax sheego ka horumarka dalka ma ya ninkii wariye waxa laga yaabaa inuu waxaan faa'iido dalku lahayn oo maanta oo dhan qof waxaysiin oo ila waxaas wax fiican ma hadda usoo laaban arrintan ku saabsan marka Muqdisho waxaa muhiim in ay ogaadaan kooxaha iskala warbaahinta Muqdisho in haddii dalkan la wareego ay sii jiri karto taas waa in la ogaada haddii maanta ciidamada Ethiopia qabsadaan Muqdisho wax leedahay ana FMka iskala iyo hay'ad hebel inta ka qaataa iyo waxa ma jiraan waxaa jira hadda markaa dhegeysta idaacado kaleeto barnaamij ka baxa sida barnaamijka Focus Fact oo diimaha laga sheekeeyo Outlook لو بادري قيس نقضي وحياة أنفعنا أنا غير ضغط عند وكر وحياة مركز استليا بس يمكن كنيسة وعكر رجل وحياة هذا اللي كان طبعا كسر معنا ما حسيت كبري رات صور على تلفون إيهس قال إيهس إيهس بلا فوق هذا مش كده تعرف ده حياة لقى تيرا يا الله محاكى رجل هذا محاكى رجل اللي يكون ترتمى واحد أنا مخبأ أنا أبغى أول أستي وركاس أنا صغير هلاي واحد oo aad madiinay iska warqabin waxay ku guulaysan waayeen waxa dhacday ani arsabka ku jiray in la yiri saxaafadda Soomaaliya ururkiina inta soo faan siina qaabka shaqeystay dadka noo diyaarna waxaan ku leeyahay saxaafadda Soomaaliya anaga aan u siinay fanke saxaafadda inta u tagno aan soo dhisan anaga oo rag iska lahay media ala shaqeynay wariyaasha professionalka laba raba in anaga ayna wataan oo hal qof oo daahir Cabdul Cali soo wareeyado saxaafadda adaa mashkaliga saxaafadda adaa mashkaliga dadkaan aad aragto hadda Muqdisho marka leedo waa la ogeed ka media kale waa dadka isku reera oo sin macdeena waxay awood leeyihiin inay midoobaan oo hal dalada sameystaan mutaqana taas waa nasiib daro waxay leeyihiin nin wariyaha ka soo tagay idaacadda dooyin maanta challenge-ga way soo arkaa warkaas anaa kaga hormar idaacadda marka warkaas sheega mareysanaysaa kadib idaacadda sheegtay waxa soo arkaa wuxuu sheegay waxay mooga saameyntu uu yeelan karo mooga diiniyan أخلاقيا وحياة كذا. حتى وحاب مهمة إلا حلو. أنا كان أحكي له مشهد. أنت سيدا قابك اللوم ذولي كرا إيران ثيرين.
aan sidoo garanno marka hore waxyaabaha habboon in bulshada loo gudbiyo maxay yihiin ma dagaalo dhacay iyo burbur iyo colaad ma warkaas ma in lagu xiiso geliyo bulshada mise waa in loo gudbiyo barnaamijyo caafimaad waxbarasho nabadgelyo horumar dhankaas targetka la saaro macnaha marka wax hore la gudbinayo marka hore inta ku heshiino kadib qaabka aan ku midoobeyna aan ku heshiino hadda tusaale waxaa kuu filan dalkan hadda bal fiiri muqdisho xilligiisay ahayd 2000 hadda say tahay hadda goobihi waxbarashada jiro goobihi caafimaadkaa jiro maalin walba horumar dadaa burooyin laga qaado laakiin saxaafadda way ka hurdaan soo maha saxaafadda kama ma buunbuuniyaan saxaafadda kama hadlaan iskuulo badan saxaafadda haddaan fiirin idaacadaha kale laba barnaamij nin waxbarasho wada idaacadaha Ah. barnaamij waxbarasho Ah. wax soo qaata waa yadihin hadda fiiri salaanad GBC oo kale Mhm. caaw haddii ka hor jaamacadda muqdisho iyo jaamacadda kaleeto mataqaanaa banaadir intay yimaadaan rag macalimiin ka socoto Mhm. ay habeen walba bixiyaan cashar ama maalinta markay casharka bixinaya ogolaadaan in TV-ga tago oo Laga laga soo duubo qaado. ayagoo casharka bixinayo Mhm. oo kadib laga daayo bulshada looga telefishinka. faa'iideeyaa maxaa dhacayso anoo aanan heli karin school feega school ama fee university feega oo la rafto ama la rafto odayaho reer 4 carruur wax leeyay xaas Mhm. oo nolol maalmeedka la rafto Mhm. yaa waxaan ka faa'iideysan karaa inaan GBC guri intaan ama cidriskii u tago Mhm. aan ilaa GBC kasoo galaysa casharka jaamacadda caawa. qaab correspondent waa la soconaya haa Mhm. marka waa qaadanaya ma fahantay ma jirto wuxuu ku leeyahay markaad tirahdo maanta arday qalin jebisay kaalay waxaa lagu leeyahay lacag meeqa bixinay aan ku sideen sharuurti aho sharuurka war sharuurka muxuu media adduunka ma jiro sharuurka ss bixi media asaa lacag bixiyey Mhm. ya intuu u tago soo wareysanaa uu hebel lacagta soo siiyo ku leeyahay war nin intaa u tagto soo wareysata $100 ku siiyey Mhm. maxaad ka sheegi karaysaa wixii uu rabo maxaad su-aal weydii karaysaa ninka qorshe u socoto waa inuu $100 wax lamida ku siiyey iyo $50 Mhm. ya marka in capacity pooling loo sameeyo marka shaqada saxaafadda ma u muuqataa in shaqadii ay sharuurka ka hormarto ها شقاس ها subaxdii wuxuu kusoo kacaya intee waxaa laga yaabaa halkaanoo dhibaato fara badan ay ka jirta ama hooyo ku dhashay inuu ka inuu ka tallaabo oo uu aado nin kale oo qori wato jeebka gacan kasta ama ganacsadaho mataqaanaa caana dhacay wax noo keenay oo sharuur inuu kasoo qabtaa Mhm. maba dhihi karayo war caanaha ayaa insurance kuu siiyey intuu weydiiyo Mhm. ya marka sidee marka maxaa habboon in loo gudbiyo bulshada waxaa habboon bulshada in loo gudbiyo wax horumar ka hadlaayo Mhm. wax ka hadlaayo horumarkooda ama waxbarashada ha ahaato dhaqanka soomaalida ha ahaato Mhm. wax kasta waa in la xasuusiyaa bulshada waxaan oo dagaalka iyo colaadaha iyo hebel waxay fiir maanta maxkamadaha waxaa la ka dhinac dagaalamayo raggii warlords kala shaqeynaya waxaan ognahay markuu dagaalka socday rag badan oo warlords ahay yaa maxkamadaha kusoo biiray oo maanta maxkamadaha la shaqeeya micnuhu raggaa waa laga yaaba inay ku siyaasad ahaayeen hadda raggaa soo laabto dibadaha kasoo laabto inta marka hore carrada soo laabto maxkamada la shaqeynaya marka waxaa loo baahan in bulshada isku tashkiilo nabadda laga shaqeeyo sida colaadda looga shaqeeyo qaan in nabadda laga shaqeeya muhiim in horta las arko saxaafaddu is aragto ay hurdada ka kacdo wasaaradda iclaamka ee maxkamaduhu warfaafinta dadka qaabilsan inay iyaga mas-uul ka saaraan intaas kaas aan u dhaadhicin aan siiyo saaxiibkay guulada isagana waxyaabaha la habboon in loo gudbiyo bulshada ama saxaafadda ay ka hadasho martiniyow waxaan dhihi ko ka horumari lahay saxaafadda soomaalida waxaan umaleynaya b b c da aabba u ah inta badan dadku ay fiirshaan ay koobiyeen ay koobiyayaan b b c dana waqtiyadii dadkan ay soo hana qaadeen waxaan umalaysaa inay danaha soomaalida kasoo horjeedi jirtay oo laba qofood oo la isku diro iyo laba qofood hadal loo kala qaado iyo hebel hadal lagu xumeeyo lagu heer dowladdii hore ay gaartay inay mamnuucdaba inay mamnuucdo ama dowladdiiba iyada burburkeeda ay ka shaqaysaba yiraahdo waxaan malaysaa marka dhalinyarta wariyaasha inay isku dayayaan inay raggaas oo kale roolkoodii qaataan waxaa la yidhahdaa hebel yaa uga su-aala adag b b c da hebel aniguna sidoo kale lagu aadiyay yani maantood aan weydiiyo waxaa la sheegayaa sida wararka la isla hayo waxaa la isku hayaa waxaa laga warqabaa waxaa la isku it's not necessary qofku inuu yidhaahdo dadka in loo gudbiyo maxaa muhiima horta maxaa muhiim ah haddii maanta la yidhahdo dad kasoo qabo dada meel lagu afduubto guriga dad lagu afduubto dadku way ogaadeen gurigaas inta lagu afto loo sheegay maxay danaynayaan waxay danaynayaan dadkii in la sii daayay iyagoo nabad qaba intaas qof kasta intaasoo sugaya ha ninkii yaa maarata asagoo meesha ku jiro daansi ciyaaray ninkaasoo meesha magasaxa cabi dadku they don't care waxay rabaan ninkaanu dadkii wuu sii daayay iyagoo nabad qaba okay ka sheekay marka ninkan inuu dadka soo nabad qaba sii daayay saxaafadda marka waxaan jeclaan lahaa dhalinyarta journalistayaalka ah ee soomaaliya jooga inay ayaga on style samaystaan oy dhahaan this is my style anaan iskale ma aha in hebel ku guwa maantona ku xoqo laakiin this is my style hebelaan wareysanaya dadkana waa isbari in loo tartamo macnaha waxyaabaha bulshada saxaafadda reer galbeedka just bilay qaadana inaan isbaro dadka oo marka barnaamijyo waxtar leh bulshada macnaha nin kasta u horseedo dadka maxaan u gudbinayaa dadka waxaan u gudbinayaa maxay u baahan yihiin dadku
maanta waxaan soo ogaanaa issue waa fikiraya meel istaaga waxaan soo ogaanaa issue ama arrin muhiima oo dadku ka jiifaan aan soo ogaanaya maxaa ka mid hadda barnaamijkiinoo kale hadda ani waxaan leeyahay tviyadoo kale in la yiraahdo waxaan sameynaynaa waxa la yiraahdo aqoonta guud ama general knowledge waxa la yiraahdo aan jaamacadaha u qabana jaamacad kasta waxaan ka keenaa 2 arday ama 1 arday tartanan dheegay su'aalaha ay ka jawaabaan jaamacad hebla ku guuleysatay jaamacad kasta waxaan keenaa inay yiraahdo ardadooda waxaad keentay strategy oo dadkan ay Soomaaliya maxaa the best government is maxay seel heli karaa arday jaamacad muqdisho keenay qola kale keenay qabyaalada si loo baabiin karaa assignment dad seena yani way ka soo shaqeynayaan way keenay way bulshada u presentation baahanayaan waxaan wacaa nin qabiira oo ama siyaasi ahaa jiray ama professor aan waca waxaan leeyahay arrintan ka waran assignment-ga soo samay ardagaan wuxuu ku leeyahay this is brilliant wax cajiib ah wuxuu ku soo kordhiyay arrin maskaxdiisa isticmaal that's waxa loo baahan marka shaqada saxaafadda waxay tahay in bulshada ay u gudbiso waxyaabaha qofka ay ku naalan karto dadka ay u adeegto waxyaabaha kale qabiilka isku darka dagaalka waa inay u gudbiso la iyo hees iyo waa inay yeeshaan fikir midaysan okay waa tahay daawadayaal waxaa lasoo gaaray gabagabadii barnaamijkii gaarka ahaa aan ugu magac darnay doorka saxaafadda iyo suxufiyiinta iyo weliba xilliyada dagaalka waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya saaxiibada kale ah daahir cabdulle caliso oo ah gudoomiyaha ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo weliba saaxiibkay Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo isagana ah nin journalist ah oo madax bannaan labadaba waan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay casuumaadda ay nooga aqbaleen idinkana waad ku mahadsantihiin daawashadiina dhanka farsamada waa Cabdiyare sida iyo nabadgelyo very interesting barnaamijka ما وجبتين برنامجنا والله دبيت على سماع دبيت يا دبيت والله how was it والله يا